Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Banoodamadiya waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan. Banoodamadiya haddii aad member ka tahay waad ku mahadsan tahay, haddii aadan member ka ahayn fadlan nagu soo biir. Mahadsanid. Qisadan waxay ku saabsan tahay geeri yaab leh, waxayna ka dhacday waddanka Masar. Hooyo ayaa wiilkeeda dhalinyar ah ka xanuunsaday. Wiilka dhimirka ayuu belay ama wuu waashtay. Hooyada iyadoo la tacaaliso wiilkeeda waxay geysay isbitaal iyo dhowr wadaado, nasiibo daro, wax isbedel ah laguma arag wiilka. Ugu dambayn waxaa lagu taliyey in ayaa geyso xarunta dadka waalan wayna geysay. Xarunta aad iyo aad ayaa loo ilaaliya, looma ogolo dadka caadiga ah in ay gudaha u galaan. Muddo kadib hooyada waxaa loo sheegay in ay u tagto wadaad kale oo daawiyo dadka waalan. Hooyada waxay u tagtay wadaadka loo tilmaamay. Hooyada marka ay u tagtay wadaadka waxay warbixin ka siisay wadaadka xaaladda wiilkeeda. Wadaadka wuxuu hooyada ku yiri wixii aan ku faro waa in aad yeesha haddii aad rabtid in uu caafimaado wiilkaadi. Waxay ku jawaabtay wax alaale wixii wiilkay caafimaadkiisa ku helayo waan samaynayaa. Wadaadka wuxuu hooyada faray in ay wiilkeeda u kariso ama u shiiso hilib eeyo una geyso wiilkeeda dhowr isbuuc. Dhowr maalmooda kadib isbedel ayaad ku arki doontaa wiilkaadii ayuu ku yiri wadaadka hooyada. Waxay bilowday in ay shiiso hilibka eeyga una geyso wiilkeeda. Cuntada waxay ugu dhiib jirtay waardiyaha ilbaabka taagan maadaama aan loo ogolaanaynin in xarunta gudaha loo galo. Dhowr maalmooda kadib waxay waardiyaha weydiisay in xaaladda wiilkeeda wax iska beddeshay, wuxuu ugu jawaabay maya, waxba iskama beddelin. Mar kasta ayay cuntada u keenta waxay weydiisaa waardiyaha xaaladda wiilkeeda, jawaabtiisa waa maya waxba iskama beddelin. Maalinta kale, marka cuntada u keentay wiilkeeda waxay waardiyaha weydiisay xaaladda wiilkeeda, haddii wax isbeddel jiraan, wuxuuna ugu jawaabay, waxba iskama beddelin wiilkaadii. Markaas ayay tiri ma dhici karto. Tolow ma wadaadka been ii sheegay. Markaas ayaa waardiyaha weydiiyey hooyada maxaa waaye wadaadka aad sheegaysid. Wadaad ayaan u tegay wuxuu uu igu yiri cuntadan hadduu cuno wiilkaadii dhowr maalmood wuu caafimaadayaa. Waardiyaha ayaa hooyada weydiiyey cuntada maxay ahayd. Waxay ugu jawaabtay waa hilib eey oo aan soo shiilay oo intaas maalmood u keeni jiray wiilkayga. Waardiyaha cuntada loogu dhiibo maba u geyn jirin wiilka, asaga ayaa cuni jiray mar kasta. Wuxuuna hooyada u soo celin jiray weelka oo eber ah. Marka arrintaas uu maqlay wuu soo tuuray ama wuu mataqay, jooga ayuu ka dhacay, sidaas uu ku dhintay waardiyihii. Qisada maanta intaas ayay ku eg tahay. Sidaas iyo nabadgelyo. Mahadsanidin.